weli barnaamijkeeni wargeysyada ayaynu dhex jabaaxaynaa daawadayaal. wargeyska xiga aan doonayo inaan idiin soo qabtana waxa uu yahay wargeyska lagu magacaabo Sharq al-Awsat ee ka soo baxay dalkaasi Britain. wargeyska Sharq al-Awsat waxa uu wax ka qoray al-Shabaab waa koox hubeysan oo ka jirta dalkaasi Soomaaliya oo taageeray fallaagada ka dagaalanta Yemen ee dagaalka kula jirta dawladda Yemen. wargeyska ayaa hadalkiisa ku bilaabay xarakada shabaabka ayaa markii ugu horeysay toddobaadkan waxay shaaca ka qaadeen taageerada ay diyaarka u leeyihiin kooxda shiicada ah ee ka dagaalanta ama dagaalka kula jirta dawladda Yemen. sidaasna waxa ay yiri Sheekh Cali Raage oo ah afhayeenka xarakada shabaab mar uu ka waramayay xiriirka ka dhaxeeya iyaga iyo kooxda fallaagada ah ee Yemen, isagoo sidoo kale sheegay inay ciidamo isweydaarsan doonaan siduu yiri ay shabaabka walaalahooda mujaahidiinta ah ugu xoojiyaan si ay xukunka uga tuuraan dawladda Cali Cabdullah Saalax. wargeyska hadalkiisa sii watana waxa uu yiri mar uu ka hadlayay xiriirka ka dhaxeeya al-Shabaab iyo al-Qaacida ayuu Raage sheegay in uusan jirin wax xiriir ah oo ka dhaxeeya labadooda dhinaca siyaasadda aan ka ahayn in ay diinta islaamka ku walaaloobeen oo kaliya iyo in ay ka midaysan yihiin jihaadka ayna muslimiinta oo dhan walaalo ku yihiin meel kasta oo ay ka dagaalamayaan isla markaana iskaashan karaan sida Ciraaq, Afghanistan iyo Yemen. Sheekh Cali Raage ayaa sidoo kale sheegay in iyaga iyo al-Qaacida ay ka midaysan yihiin xornimo u dirir oo nasan jirin wax xiriir kale ah oo ka dhaxeeya, balse waxaa jirtay hadal cajalad ku duubnaa uu u soo diray Usaama kooxda al-Shabaab Ciidul Fidrigi aynu soo gudubnay, taasoo uu kaga hadlayay xiriirkooda kuna dhiirigelinayay inay hawlahooda sii wadaan. balse Sheekh Cali Raage ayaa arintaasi waxa uu ku tilmaamay inaanu ahayn Usaama ee codkaasi uu ahaa mid ka mid ah mujaahidiinta Soomaalida. Sheekh Cali Raage ayaa BBC-da ka sheegay in dawladda Mareykanka ay uga digayaan inaysan ciidamadeeda u soo dirin Soomaaliya haddii ay u soo dirayaan ay cawaaqibtoodu noqonayso in wadooyinka xamar lagu jiijiido sidii ku dhacday sanadii 1993. waxay arintani diidma cad u tahay in faragelin shisheeye dalka Soomaaliya marnaba aan lagu sameyn karin, ayna doonayaan shabaabku inay xukunka ka tuuraan dawladda Sheekh Shariif ayadoo dhacdadii Kenya ka dhacday ee rabshadaha dhalisay jimcihii la soo dhaafay ku beegnayd 15 bishana lagu eedeeyay in al-Shabaab ay ku lug lahaayeen. halkaad barnaamijkaani ka daawanaysaan akhyaarta wada nagala socota waa TV-ga ETN magaalada Nairobi. waxaana ku guda jirnaa barnaamijka wargeysyada. iminkana waxaan idiin soo qabanayaa wargeyska New York Times ee ka soo baxa dalkaasi Mareykanka. wargeysku waxa uu si weyn wax uga qoray dhulgariirkii xooga badnaa ee ku dhuftay dalkaasi Haiti oo dad badan ay ku geeriyoodeen, kuwa kalena ay ku waxyeeloobeen, ismayaal fara badan ay ku burbureen. guuleed ayaa inoo faahfaahinaya. weli waxaa la soo qafayaa meedadkii dadkii uu dhulgariirku ku dumiyey dhismayaashii ay ku jireen iyo waliba dadkii wadooyinka marayay ee burburku ku dul habsaday kadib markii wadankaasi ku dhuftay dhulgariir geystay khasaaro naf iyo maalba leh. waxaa jira dad iyagu weli nool oo burburka hoostiisa ku jira, sida gabar yar oo 7 sano jir ah oo laga soo saaray meel la qoday oo burburtay iyadoo gabadhaasi ay ku hoos jirtay 4 maalmood dhismahaas ku soo dumay hoostiisa iyadoo cunaysay buu yiri wargeysku cunto la sheegay inay ka heshay supermarket ku soo duldumay markii dhulgariirku ku dhuftay Haiti. xaaladda ayaa la isku dayay in wax laga qabto iyadoo ay ka qayb qaadanayaan ciidamada gurmadka ee Haiti iyo ciidamo ka socda wadamo kale sida Mareykanka. waxaase weli muuqataa in xaaladda aan la xadidi karayn iyadoo khasaarihii uu weli sii socdo dadkiina ay burburka ku sii hoos jiraan. xaaladda ayaa waxay u muuqataa mid aan wax laga qaban karayn sidii la filayay. waxaa iyadana jirta in bililqadu ay gaartay heerkii ugu sarreysay, sidoo kalena waxaa jiray in la arkayay dad ay askartu tooganaysay iyagoo uga shakisanaa inay boobayeen hantida leeyahay. waxaa sidoo kale walaac ay dunidu ka muujinaysaa bililqada ama dhac loo geysanayo deeqdii ay dunidu u soo dirtay in lagu gargaaro dadka waxyeeladu ka soo gaartay, iyadoo la arkayay dadka oo wadooyinka isku haysta waxyaalaha ay ka mid yihiin cuntooyin iyo dawo. wargeyska oo hadalkiisa ama qormadiisa soo gaabinaya ayaa waxa uu yiri
Ban Ki-moon oo xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa gaaray dalkaasi kadib ballanqaad uu sameeyay markii dhulgariirku bilowday wuxuuna dad isu soo xoomay oo reer Hayti ah ugu sheegay sarta qaramada midoobay horteeda oo dhaawac badan soo gaaray isla sartaasi dhulgariirkii in qaramada midoobay ay la qaybsanayso murugada dadka reer Hayti ee ay masiibadu ku habsatay iyagoo uu sheegay in ay diyaar u yihiin inay caawiyaan inta ay karayaan gargaarka ayaa u socda si tartiib ah iyadoo hay'adda WFP cuntada adduunka ay isku dayso inay gacanta ku qabato hawlaha samafalka ee Hayti iyadoo sidoo kalena laanqeyrta casiyo hay'adaha MSF ay ka taakuleynayaan dhanka dawooyinka dadka ay waxyeeladu soo gaartay kaasna wuxuu ahaa wargeyska New York Times oo wax ka qoray dhulgariirka khasaaraha geystay ee ku dhuftay dalkaasi Hayti ee koonfurta America wargeyska xigaan doonayo inaan idin soo qabtana waa wargeyska maalinlaha ee lagu magacaabo Haatuf ee ka soo baxa Somaliland magaalada Hargeysa wargeyska ayaa toddobaadkan waxa uu wax ka qoray mowqifka Ahmed Maxamed Maxamuud Siiraayo oo ah gudoomiyaha ururka siyaasiga ee kulmiye mowqifkiisa ku in maamulka dalka ku saleysnaado gudoomiyaha xisbiga kulmiye oo waraysi uu siiyay idaacadda laanta afka Soomaaliga ee VOA-da talaadadii la soo dhaafay laga baahiyay isla markaana wax laga weydiiyay xilligii halganka SNM lagu jiray mowqifkiisa uu aaminsanaa nidaamka federaalka in dalka lagu dhaqo ayaa isagoo sheegay in uu waqtigaasi ay jirtay waraaq uu si rasmi ah ugu cadeeyay in dalka marka la xoreeyo Soomaaliland iyo Soomaaliya oo dhan lagu dhaqo nidaamka federaaliga wargeyska oo hadalkiisa sii watana waxa uu yiri gudoomiyaha ururka kulmiye ee mucaaradka ee Somaliland oo talaadadii idaacadda VOA-da codkiisa laga baahiyay isagoo ka hadlayay mabda'a federaalka ee uu aaminsanaa xilligii uu gudoomiyaha ka ahaa ururka SNM waxa uu yiri anigu urur baan madax ka ahaa mabaadi' buu lahaa aan ku shaqaynaynay anigu runtii waxaa jiray bariga xataa waraaq aan qoray oo aan anigu bariga aan soo jeediyay haddii dalka la xoreeyo in qaabka federaaliga ahi in uu yimaado oo aan qoraal aan qarsoodi ahayn oo aan qoray waxaa jirtay oo aan anigu bariga diyaariyay wargeyska ayaa hadalkiisa ku soo koobaya dalka Soomaaliya oo dhan baa la xoreynayay meel uu joogaba ayay ahayd koonfur iyo waqooyina waa la wada shaqaynayay dagaalkana waa lagu wada jiray jabhadihii intii ugu badneed iyo ummadii isku midka ahayd oo iyadoo aan lagala tashanin jabhadii ugu xooga weynay dalka soo ahayd SNM dib uga xanaaqday oo dadkii bay kicisay dabadeedna waa tii buucalle isugu yimid oo ay Somaliland tiri waanu goosanay wargeyska ugu dambeeyay idin soo qabanayana waa wargeyska The Daily Mirror oo wax ka qoray qorshayaasha madaxweyne Obama oo uu sheegay inay yihiin kuwa guul darro qarka u saaran waxaana faafaahinayaa guuleed wargeyska ayaa warbixintiisa ku bilaabay sida tan waxaa dhici karta in qorshaha madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama uu ku doonayay inuu ku meelmariyo arrimaha caafimaadka ay dhaqangelintiisu qilqil gali karto kadib markii doorashadii loogu lulamayay kursigii uu ka geeriyooday senatorkii Ted Kennedy uu ku guuleystay Scott Brown oo ah musharaxa xisbiga Jamhuuriga taasina ay ka dhigayso in tirada labada xisbi ay isla ekaadaan ama isla ekaan doonaan marka ay timaado codbixinta loo qaadi doono meelmarinta arrimaha oo qorshaha caafimaadka ee uu soo hindisay madaxweyne Obama isla markaana uu ku doonayo in la meel mariyo wargeyska warbixintiisa sii wata ayaa yiri guushan uu soo hayatay xisbiga Jamhuuriga waxay dhabarjab xoog leh ku keeni kartaa dhammaan qorshayaasha uu madaxweyne Obama ku doonayo inuu horkeeno guriga senatarada dalka Mareykanka iyo waliba isbedelka uu doonayo inuu ka sameeyo siyaasadda dalka Mareykanka Mr. Scott Brown ayaa noqonaya senatarka 41aad ee xisbiga Jamhuuriga kana dhigay in madaxweyne Obama uu hindisa uu ku doonayo in lagu meelmariyo qorshaha caafimaadka ay adkaato haddii ay xisbiga Jamhuuriga hor istaagaan wargeyska ayaa warbixintiisa ku soo gabagabeeyay loolankii dhexmaray labada musharax ee ka kala socday labada xisbi ee dalka Mareykanka ugu waaweyn ee dimuqraadiga iyo Jamhuuriga ayaa ahayd mid xamaasad leh ama xamaasadaysan iyadoo labadii musharax ee Martha Coakley oo xisbiga dimuqraadiga ka socotay iyo Scott Brown oo ka socday xisbiga Jamhuuriga ay labaduba soo bandhigeen qorshahooda ay doonayaan inay wax kaga qaban doonaan horumarinta gobolka laga soo doortay iyo midka dalkaba wargeyskaas The Daily Mirror oo warbixinta ka qoray dalkaasi Mareykanka iyo doorashadii lagu tartamayay kursiga senatka Ted Kennedy uu ka geeriyoodayna
waxa ugu dambeeyay barnaamijkii wargeysyada ee toddobaadkan intaynu mar kale toddobaadka soo socda haddii eebayd ma ku kulmi doono barnaamijka wargeysyada waa anigoo ah Fawziyo Cumar Barre iyo anigoo ah Guule Danjire oo idin leh nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh